iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardoosiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha laysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سورة الفاتحة تفسير كذا المرينا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما هذه الله بعد رب العالمين عالمين تؤدم يسقوا ربي جوا هاي اسكلها الرحمن naxariistiisu caamka ahayde cid wala adduunyadan joogtaba gaarsiiyey arraxiimi naxariistiisu gaarka ahayd ee naxariistiisa ilaahay ku gooni yeelayay maalinta qiyaamaha iyo aakhiro awliyadiisa iyo dadka isaga rumeeyey maaliki yowmiddiin maalinta qiyaamaha waa ilaaha isagu iska leh wax walba iska leh iyaaka nacbudu ilaahayow keligaa baanu ku caabudaynaa وإياك نستعين كلجابا نجرجار كادونينا اهدنا الصراط اهدنا إلهي ونجوها جاتي أو نجوها نوني ونجو توسي الصراط والضدي أما تشتكي المستقيمة اتوصنع صراط الذين إلهي وكوي تشتكو ذا نجوها جاتي ونجوها نوني أنعمت عليهم أضبر واقيسي khayrka iyo baraaraha iyo barwaaqada aad siisay oo markaa dee mu'miniintiya ghayril maghduubi calayhim kuwii loo cadhoodayna aan ahayn wala daaliina kuwii hallaabayna aan ahayn suuradda macnaheedu marka la soo koobo waa sidaas weeye waxay ku bilaabantay suuraddu mahadda ilaahay subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxay ka mid tahay shanta suuradood ee qur-aanka kariimka ah ku bilaabma ereyga alxamdu lilah suuraddan imika aynu marayno suuratu lfaatixa suuratu lancaam suuratu saba suuratu faatir iyo waxaan dhaafay suuratu lkahf shantaas suuradood xamdigu ashaa ku jirta alxamd waxay leeyihin culimadu waa lilistiqraaq waxa weeyaan waxay sheegaysaa ama u taagan tahay macnaha ay sheegayso ereyga kullu oo kale kullu alxamdu lilah ilaahayow mahad oo dhan adigaa leh mahad hore iyo mid dambe iyo mid addoommaha adiga ay ku mahadiyaan iyo ta dhexdooda ay ismahadiyaan waxoo dhan adaa leh garanaydaa ilaahay si toosa marka loo mahadiye dadku hadday ismahadiyaanna sidee buu ilaahay mahaddooda ku yeelanaya dee wuxuu ku yeelanayaa qofka la mahadiyey ee wanaagga laga sheegtay yaa wanaajiyey ilaahay baa wanaajiyey marka ilaahay baa ku ammaana subxaana wa tacaala markaa waxaa la yidhaahdaa lilistiqraaq hadihi lafda daalat cala alistiqraaq xamdigaa isaga ahi waa xamdi kaamilka ah min jamiici alwujuuh dhinacyadoo dhan mahadun buu ilaahay leeyahy hadduu deeq ku siiyana mahad buu leeyahy hadduu dhib kugu ridana mahad ayuu ku leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala waxaa fasirayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii markuu ilaahay ka helo subxaana wa tacaala wax wanaaga wuxuu odhan jiray alxamdu lilah aladii binicmatihi tatimu saalixaat ilaahay baa mahad ilaahay wax walba nicmadiisa ay ku dhammaystirmayeen markay dhibi rasuulka soo gaadhana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay baa mahad walba mahad isagaa iskale xaalad walba waxaan jecelahayba yuu soo gaadhine oo dhibaha igu dhacee mahad buu leeyahy alxamdu lilah rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi waxay sheegaysaa uluuhiyada ilaahay inuu isagu yahay ka cibaado iyo mahad iyo xamdi yeesha rabbi alcaalamiinna waxay sheegaysaa rubuubiyada ilaahay inuu yahay rabbiga isagu cid walba u abuuray idan halkaa waxaa ka muuqanaya naftiisa ilaahay wuxuu ku sifeeyey uluuhiya qabla rububiya taasina waa tay u taagnaayeen rusushoo dhan
waxa in badan dadku ay diidanayeen cibaadada ilaahay markaasaa rususha lagu soo diri jiray dadka inay ogoleysiiyaan cibaadada in badan oo kamid rabbinimada ilaahay waa ay ogolaayeen marka muhiimadda ay sii leedahay cibaadada Allah in lagu khaas yeelo ilaahay uu horeeyay saayno arkay rabbul alamin alamin toodan bu rabbi u yahay erayga rabbi macnaha uu sheegayaa waxa weeye uu abuuray waanu leeyahay waanu maamulaa waanu arsaaqaa intaa cid noqon kartaa ma jirto ilaahay mooyaan subxaanahu wa ta'ala caalamiintu waxa weeye cidiisa ka soo hadhay oo dhan fircoon markuu nabi muuse ku yiri rabbul alamin ku muxuu ahaa ayaa wuxuu yiri rabbus samaawaati wal ardi wama baynahuma ilaaha abuuray weeye cirka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysaba ee iska leh marka caalamiinto dhan caalamka sare iyo caalamka hoose iyo meel walba ilaahay baa abuuray isagu iska leh subhanahu wa ta'ala wa umum rububiyyati Allah ta'ala li jami' al-alam marka la eego suuradu tawxiid saddexdiisa qayboodba way tilmaamaysaa rububiyada ilaahay inuu yahay isagu rabbiga caalamka way sheegtay rabbul alamin uluhiyada ilaahay inuu ilaahay cibaado xaq u yeeshay bay tilmaamaysaa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-asmaa wa sifaat tawxiid al-asmaa wa sifaat inuu ilaahay leeyahay sifooyin wanaagsan iyo magacyo wanaagsan bay sheegaysaa ar-rahmaan ar-rahiim maliki yawmiddin waxa ku sii xiga markaas ar-rahmaan ar-rahiim labada wasfi ama labada tilmaamood ilaahay baa iska leh subhanahu wa ta'ala oo halka horun bay sii fasirayaan ay raaciyaano rabbul alamin markii ilaahay uu soo xusay baa qofku wuxuu isweydiinaya talow rabbinimadaas ma waxa weeyaan rububiyya intiqaam iyo ciqaab iyo cadaab iyo dhib uu ku jiro ما جوابت وحويان والربوبية نحريس ولط الرحمن الرحيم إلهي نحريس يساب الله رنا بدن سبحانه وتعالى نوع هذه الربوبية ربي لماذا إلهي نوع عايتاي أيها ربي وكل شوابي الرحمن الرحيم معنيه روى الله وقال يا إسلام بي إلهي نعمدي سووا سياد ويدا وهذا أركياي isuguna xariisanayaan naxariistiisa daraadeed isagaana fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu ilaahay wuxuu leeyahay naxariistiisa boqol buu qaybiyay 99 jannada ay ku dambeeyaan hal mid buu adduunkan keenay khalqiga oo dhamina taas uu isugu naxariisanaya bal waxa naxariista dunyadan taala ee xataa xayawaanka ee wax cuna ee sabca la yiraahdo wax ugaarsada oo ilmihiisa yar ugu naxariisto naxariista taasa kamid ah bal naxariista inta la eeg baa ayaa mid kamid ah adduunka la keenay maxaad u maray 99 aad u weyn naxariista ilaahay qof guul darro badan baa naxariista ilaahay ka qada ilaahayna adoomaha wuxuu doonayaa inuu naxariisto oo uu badbaadiyo walaa yahliku ala allah illa halik mid isagu naxariista ilaahay iska diida booyaan الرحمن الرحيم رحيمنا marka waxa weey nicmadii aakhiro dee awliyadiisu siinaya dadka ashahaatay isaga rumeeya adduunka iimaan kaga tagay sidoo aayada ku cadeeyay wa kaana bil mu'miniina rahiima mu'miniintu buu naxariisanay ilaahay subhanahu wa ta'ala culimada qayb kamidii waxay ku fasiraan ar-rahmaan al-mun'im bi jalaa'il an-ni'am wa ilaaha bixiya nicmooyinka waaweyn war-rahiim al-mun'im bi daqaa'iq an-ni'am wa ilaaha bixiya nicmooyinka qarsoon ay yaryar كان نعمده waaweyn iyo tayar maxay kala nicmooyinka qaar kood dadka way u muuqdaan inaad xoolo yeelato inaad dad yeelato inaad caafimaad leedahay waxa soo dhan waxyaabo dadka u muuqdo way nicmooyinka yaryarina waxa weey nicmada oo qofku garto markuu waayo waxa jira nicmooyin badan oo inta hore aan fahamsanaynba inay nicmo tahayba laakiin markaad weydo un baadanayso taasina waxaana miyaan haystay ma baan ogeynba waana badan nicmooyinkaas إياك نعبد مالك يوم الدين
maaliki yowm اddiin ilaahay baa maalinka qiyaamaha maaligahoo isagu iska leh oo miyaanu adduunyadayna lahayn mee wax alla waxa adduunka yaallana dad iyo dunyo iyo caalamka o dhan isaga iska leh maxaa haddaa maaliki yowm اddiin maalinka qiyaamaha ilaahay ugu gooni yeelay lahaanshaha culimadu waxay leeyihiin waxa hadhaya sheegashooyinkii adduunyadan ka jiray adduunkan dad badan oo waxuun iska sheegtaa jira waa xoolahaygii waa daarahaygii waa waddankaygii lahaanshihii noocaas ahaa ee dadku ay sheegan jireen wax ayaa iska hadhay maalinta qiyaamahana ilaahay taa uu sii caddaynayaao wax alla wixii waxuun sheegi jiree lahaa anaa leh su-aal baa la weydiinaya liman ilmulku اlyowm maanta yaa wax leh jawaabta maxay noqotay lilaahi اlwaaxid اlqahaar ilaahay baa keligii wax iska leh marka cid kaleba jawaabi weydo ilaahay baa isu jawaabaya cid kaloo wax leyba ma jirtaba maalinta mid waloo melik iyo maalik iyo sheegan jirayba halkaasu ku hadhay oo iska aamusa labada qiraba way jiraan maliki yowmiddiini iyo maalik labadaba waa jiraan marka waxaa jira melik aan maalik ahayn iyo maalik aan melik ahayn labadaba ilaahay uu yahay subxaana wa tacaala melikna uu yahay maalikna uu yahay melik baa jira boqora oon waxba lahayn inkasta iskaba yar tahayba oo kii wax yeeshaaba had iyo jeer wuxuun xuurtaysto oo hadduu melik ba yahay inta badan laakiin wuu jiri karaa melik aan maalik ahayn oon waxba lahayn waxaase loo badan yahay in dadku ay yihiin dad maalikiin oo wax leh laakiin aan melik ahayn oon boqornimo lahayn labadaba ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala isagaa boqorna oo waxna leh waxay aayaddu muujinaysaa ihbaatu sifati اlbacثi wاljazaa in aakhiro jirto oo iman doonto inkastoo in badan iska dhega tireen dadkan adduunyada ku nool abaalmarino dambayso mudan in la xusuusto loo diyaar garoobo oo siday qeybkii hore iyo ummadaha hore uga warrantay aakhirana way ka warramaysa adduunka waxa joogana way ka warramaysa xaqu ilaahay leeyna way ka warramaysa suuraddu marka waxaa mudan in loo camal falo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxay tilmaamayaan labadaa jumle isdaba yaalla in addoonkii ilaahay keligii uu caabudayo keligiina gargaar uu weydiisanayo cid gargaar la weydiisto ama la caabudana waxa u mudan sifooyinkaa wanaagsan ilaah leh subxaana wa tacaala ilaah wax walba iska leh ayaa cibaado xaq u yeeshay isagaana gar u leh in dee marti loo noqdo oo wax alla wixii uu addoonku codsanayaba isaga u qadimo waxaa markaa aayaddu ay caddaysay labadan arrimoodba inay yihiin laba arrimood oo ilaahay ku gooniya cibaadada iyo isticaanada alcibaada xaqu lilaahi tacaala waxaana laga fahmayaa taa shayga loo yaqaano xasriga ama qasriga taqdiimu lmacmuuli cala alcaamil waxyaabahay luqadii aynu sheegayna kuu faa'idaynayso wey luqada carabiga hadday tahay naxwada iyo balaaqada iyo waa mawaadiicday ka warramaan had iyo jeer shayga la idhaahdo alqasru waalxasru alidaafi waاnisbi qaybihiisii kala duwanaa marka maadaam ereygii dambayn lahaayoo iyaaka labada meeloodba xagga hore maray macnaha laga fahmayaa waxa weeye keligaa baanu ku caabudayna keligaana gargaar baanu ku weydiisanayna sidaasaanay tahayoo dee intaasoo daliil baa inoo sheegaya cibaado inuu ilaahay keligii leeyahy oo wax xuquuqda cid waliba xaq bay leedahay ilaahay xaq keligii u leeyaha in ilaahay keligii la caabudo sida xadiidkii mucaad ku sugnaa tadri maa xaqu llahi cala alcibaad xaqa ilaahay addoomaha uu ku leeyay mataqaanaa waa inay keligii caabudaan isticaanadiina waa saasoo kaleo ilaahay keligii baa gargaar la weydiisanaya haddii aada markaas taa hore garanayo dee cibaadada haddii laakiin qofku uu idhaahdo meelaha qaarkood sawtay ku soo aroortay in cid kale isticaano la weydiisan karo ee ilaahay ba uhi watacaawanuu cala albiri waataqwa samafalka iyo isu kaashada alla kacabsiga isticaanadaas maxay noqonaysa isticaanada laba qaybooda isticaanatu tafwiid wa isticaanatu lmushaaraka isticaanatu tafwiid macnaheedu waxa weeyaan wax aan cid kale qaban karin oo ilaahay unu qaban kara keligii subxaana wa tacaala oo aan addoomuhu kuu qaban karin taa ilaahay keligii baa la weydiistaa isticaanatu atafwiidna waa la yidhaha ilaahay baa keligii loo bandhigaya waa waxa addoomaha kale lagala quustay qaban kari waayaan yaa ku badbaadin karaa yaa dhal ku siin karaa yaa ku jannayn karaa yaa dembiga dhaafi karaa intaaba ilaahay subxaana wa tacaala cid kale ma leh
marka isticaanada waxa la yiraahdaa isticaanatu tafwiid isticaanatu musharaka baa jirto waa waxa ay adoomaha kale ku qaban karaan xogaa lacag bay ku siin karaan dacada marka ay saysan bay ka dhicin karaan waxyaabo badan oo adoomuhu ay ka caawin karaan baa jira marka taana musharaka la yiraahdo marka ta la ogol yahay sharcigu ogol yahay waa taa musharakada ee cid kale ku qaban karto taan cid kale ku qaban karaynina waa ilaahay subhanahu wa ta'ala takaligi u leeyahay sida darteed midalan adoon dhintay oo kale waxba kuma qaban karo oo de shaqadii way ka dhamaatay isaga waa cadilana duca u baahan keenad barida ma adoon maqan oo aan kulaba joogin waxaanu ku qaban karaa inaad weydiisato ma laakiin adoomaha ku hor joogay kula jooga wixii ay ku qaban karaan isticaano wada weydiisan kartaa waa ka ilaahay oo tacaawan goorma adoomaha laftigoodu waxa ay ku qaban karaan goorma la weydiisan karaa waxa la weydiisan karayaa cinda alxaaja marka aad had iyo jeer baahato markaad baahataaba sharcigu ku fasaxaya cid kale inaad codsi u qorato aad wax weydiisato haddii kale iska dah bukaan badan bariya badan baahi badan waa la isku nacasoomahay yay ku nicin oo lagu nicine ilaahayna wuxuu kugu jeclaadaa inaad codsi u gudbiso aad isaga wax weydiisato adoomuhuna waxay kugu nacaa inaad iyaga wax weydiisato والله يغضب إن تركت سؤاله وبنو آدم حين يسأل يغضب لهي وقوع عرض هذا وحبا ويدي سوي والدعاء سوي والبري ويد الضمور ويقوع عرض هذا وحبا ويدي ستو الرحمن كي خلقه إلهي يا خلقه فرق قول حي يسوي كلا دوينه وحكى علماء إليه واحد عيد وحبا ويدي سنكرتاه عند السرور به مركو قفك كفر حسين وحالada qaarkood buu qofku danaynaya inaad wax ama cilmi weydiisato ama cuud iyo xoolo weydiisato oo isaga taas ay ka farxinaysaa u jecel yahay taas oo kalena waa la weydiisan karaa dib kuma jiro lifaaqana culimadu hadiya jeer waa si fasireen ihdina as-siraat al-mustaqim waxyaabaha ilaahay isticaana ka weydiisanay isticaanadii waa socota ilaahay uu jidka toosan nagu hanuuni yaa kugu hanuunin kara jidka toosan ilaahay mooyaane ilaahay baa ayaa kugu hanuuninaya isticaanadii bay daba taalaado ilaahay oo jidka toosan nagu hanuuni waxyaabahan gargaarka isticaanada kaaga doonaynay gargaar ayuu kamid inaad hanuun nasiiso hanuun kana ilaahay baa bixiyo subhanahu wa ta'ala intaan halka hore soo dhaafin aayada hore culimadu waxay leeyihiin imika nacbudu wa nastaciin way kala horeeyaan nacbudu baa horeysa nastaciinuna way dambaysaa وانا كحديث النبي عليه الصلاه والسلام ان كسو مرينا حديث القدسي ان انت هرنا الهي ودي اني قال انت ضمن ادونك عليه نعبد وعباده الهي الهي عليه انت ضمن نستعيننا ادونك عليه والهي وحو ويديسنيا waxa laga sirta laga fahmiyo latiifada ku jirta waxa weey marka ilaahay wax ka doonaysa wixiisa si ilaahay waxbaynu ka doonaynaa Soomaha waynu baryaynaa horta amarkiisa qaado cibaadu ayuu ka doonayaa adigu baad wax ku helayso u baahan tahay horta cibaadadiisa la kaalay oo amarkiisa qaado markaas codsigaaga soo qadimiyo aadaabtu waxa weeye wixii aad doonayso markaas aad heli bal ka soo qaad tusaale nin baa madaxa adiguna shaqaalihiisaad ka mid tahay markaa wuxuu yidhi qofka caynka sameeya hawlaha qabta waxaan ugu abaalgudi doonaa waxa dadkii kale way qabteen mid baa isagu halkiisa iska fadhiyo ninkii madaxdaaba ku soo noqdo wuxuu leeyahay anigu wixii aad ii dirtay maan qabanin laakiin waxa san ka doonaya shardi baaba ku xidhnaaba waxa ay codsiga markaad fuliso amarada ayaad codsigaaga heli doontaa ninka madaxdii wuxuu oranayaa wixii aan ku diray ma qabanin ma qabanaya ii dhig waxa san ka doonaya wuxuu istaahilaa marka in la xidho iyo in la garaaco iyo in la fogeeyo walillahi al-mathalu al-a'la tilmaantii khalqiga haddaad saa u fahamtay ilaahay khaaliqaha ku abuuray maxaad u malaysaa alla wuxuu wa idaa sa'alaka cibaadi anni fa inni qariib ujiibu da'wata daa'i idaa da'an falyastajiibu li walyu'minuu bi la'allahum yarshuduun si aan ducadooda u aqbala dadka iyo codsiyadooda isticaanadooda iyo gargaarkooda iyo waxay iga doonayaan oo dhan si aan uga yeelo horta aniga hay aqbalay hana i rumeeyaan inta i rumeeyaan horta hay aqbalay in ilaahay diiday muxuu wax kaga doonaya subhanahu wa ta'ala waxa labaad oo nacbudu iyo nastaciin jamac bay u taagan yihiin erayadu
iyaaka acbudu iyaaka astaciinu ma aha laakiin waa jamac marka halkaana waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimadu sida shareecadduba inoo dejisay in cibaadadu ay ku fiican tahay jamaca iyo wada jirka salaadii baa jamaca oo ku fadli badatay 720 darajo xajkii baan jamac la-aantiiba ansaxaynin jihaadkii baa jamaca iskaashigii wixii khayra ayaa watacaawanuu cala albiri wataqwa baa la leeyahay waxaa kale oo alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar iyo wixii wanaagsan tacaawun iyo iskaashi marka mar walba wixii cibaado ah iyo khayr ah inay iskaashiga ku fiican yihiin kale socodkuna aanu fiicnayn oo shaydaankuba kaa eri karo xataa cilmiga barashadiisa iminka haddaad halkaa u baxdo oo aad tidhaahda anigu lifekan ka dhagaysanaya xaafadayda iyo haddaad xalqadan soo fadhiisata ma isku baraka maaha lifeka islaantii baa mar koob shaaha ku keenaysa marna ilmihii yaraabaa ku jiiraya marna kii meheraddaa ku odhanaya ii saxeex dee ictikaafkana ma helaysa baasha nafyina waa daciifa markay cid la cibaadaysanaysa tartan iyo suxulduub bay ku jirtaan iyo cid ay eeganayso oo wuxuu arkayaa dadkii oo ka dheereeyey laakiin marka keligii uu noqdo shaydaanku maalinba in yar buu turkinaya inuu ilaa uu wixii hayayba ka laababa nacbudu wanastaciin asraarta ku jirta ayaa ay ka mid tahay asiraad almustaqiim siraad wuxuu noqdaa bay leeyihin culimadu mid toosa iyo mid qalooc ku yaro jira labadaba laakiin arrintaa waxaa ka saaray almustaqiim marka jidka ilaahay loo maraa waa mid toosan وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سورة الأنعام إلهي وحول جدك سواء جدك يجي توصنايا صامرة وإسلام لماذا مركز إسلام كسيفي عنه الرعضة واتسعونيسا إلى أد إلهي سور تاكتو سوى كارنا لي قيامة إلى أد تنذى الباب كذا كقش هدي أنو جدك سكي إلهي هنا مستقيم ما هو قلع مركلا جدك لسيف تيبي جدك مستقيم كهايو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dadku marka laga xagga nicmada iyo la'aanteeda wasadex qaybood qolo nicmada ilaahay ku qabowsaday oo u barwaaqeeyay oo waa dadka ilaahay rumeeyay ka amar qaatay allah inaga dhigo kuwaas waa qolada labaadna waxa weeye qaar aan baday oo ka dhacay nicmadii iyo waayayba wala daaliin iyo qaar iska daa intay nicmo helaana looba cadhoodayba al-maghdubi calayhim saddexdaa qaybood bay dadkii adduunyada ku noolaaba u qaybsan yihiin gaaladiina labadaasay usii qaybsan yihiin kuwa kufriga ku hallaabay iyo kuwo kale oo looba cadhooday muslimkuna waa dadkaa loo nicmeeyey qur-aanku isagaa isfasiraya sidii horeba aynu usoo sheegnay dadkan ilaahay ilaahay u nicmeeyey ee aynu codsanayno in jidkooda ilaahayna marya waa kuwe suuradeebaa ilaahay uu ku tilmaamay suuratu annisaa ayaa ilaahay uu ku caddeeyey subxaana wa tacaala waman yudic illaaha waarasuul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عد إلهي رسولك أضيع ذلك كالتلقادت جدك إن نعمة إلهي يشوح كاحي قوم إن إلهي أضيع وأنبياء نبيدي وإذا قال هذا كل شهيدي تدكي صالحين تاها وناق بدنا كويرهم تبضنا عد للرفيق للراعة لو هلينا كواس وناكسب لهينا وهمليه سبحانه وتعالى الصراط المستقيم marka wuxuu kamid yahay waxyaabaha ilaahay oo adoamaha ugu nicmeeyay habeenii maalin bada ilaahay aynu bariyayna inuu inagu hanuuniyo siraadul mustaqim culimadu waxay leeyihiin laba arrimood ba aayadan dambe ilaahay ku baraarujiyo ku diidi kara al-inaad wal jahl inaad iyo jahl anaadku waa wax keeni kara qofkii xaqii garanaya ayaa iska diinaya waa sida kuwa maqduubi calayh waa yahuudi iyagoo xaqa garanaya ayaa iska barbarbareen kitaabkiina gacmahooda ku bedeleen marka dad badan baa waxa dhacda iyagoo xaqa garanaya anaa daraadi inay u barbarbaraan waa wadaad xume ama ka loox tuurka ama uu kitaab tuuray la yiraahdo uu garanaya xaqi laakiin uu jirsiinaya siraadul mustaqiim marka wuxuu ku seegay أنا درادي على الله متستمرك المغضوب عليه قايبنا جهل باهية ولا الضالين وشيت كنت أسوي حويداري وأنبضي وعندنا هين باب الدين كرجنا يا الله سدا إلى هاي سورة الحديد آخر كذا وكت المامي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله
suufinimo iska dhambasheenoo nimankii diinta kiristanka haystay iyo wadaadadoodii waxaan diin ahayn bay diin ka dhigteen iyo bidca marka dariiqa wanaagsan jahligaasina wuu ku weydaarin karaa labadaba markaa waxaa laga baxayaa diintoo la barto lana dhaqan geliyo aayadda waxaa ka muuqanaya labada qolo waxa sii xumaan badan jidkan toosan kuwa u seegay canaa daraadii sidaa daraaddeed buu ilaahay soo horraysiiyey almaqduubi calayhim si kale haddaad ugu fiirsato almaqduubi calayhim waa ismi mafcuul addaaliina waa ismi faacil waa cilmigii naxwada ma jecli had iyo jeer naxwada inaan aada ugu dheeraano oo aynu u dhex galoo dee dadka caadigaabaa ka dhacaya oo waa arrin dalabada iyo dadka aqoon-yahanka ah ayuunbaa kula fahmi kara markaa intaad naxwada ka sheekaynayso waxaa laga yaabaa dadka caadiga inaanay kula qabsan saa daraaddeed macna ahaan inaynu ku keenno mooyaane inaynu faahfaahinteeda badino waynu kasoo yaro gaabsan insha allahu tacaala almaqduubi calayhim waa macno sheegaya waa loo cadhooday kuwanna way hallaabeen waa faacil iyo mafcuul farqiga udhexeeya waxa weeyaan bay leeyihin culimadu ismigaa mafcuul waxa uu sheegayaa waa loo cadhooday ilaahay baa u cadhooday waxa kaloo u cadhooday cid kastoo ilaahay ka amar qaadanaysa oo addoomihiisa oo mu'miniinta oo awliyada ah ilaahay baa yuhuud iyo gaal nacdalay inaguna waynu wada nacdalayna wixii ilaahay ka amar qaatoo dhan sidaa daraaddeed baa ayaa wasfigaa ismiga mafcuula u yimi ciddii ilaahay ka amar qaadanaysa subxaana wa tacaala ilaahay baa nacdalay iyo ciddii ka amar qaadanaysaba marka labada wasfi macnahaasay sheegayaan marka cadhadii ilaahayna way ku dhacday oo ilaahay baa nacdalay waxaana sii nacdalay ciddii ilaahay aqbashay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay yidhi iyaguna odhanaya marka suurat اlfaatixa fadligeedu aada iyo aad u badan yahay waxyaabahaasoo dhan bay inoo sheegaysaa adaabta kale aynu ka arkaynaa waxa weeye siraaط aladiina ancamta calayhim wax allo wixii khayra iyo wixii fadliya ilaahay baa la siiyaa oo loo nicmeeya wاlfadlu ilayh wixii khayr oo dhan ilaahay baa loo nisbeeya ancamta wixii sharana dadkaa loo nisbeeya washaru laysa ilayk adaabta fiican weeye saa daraaddeed baa isnaadkaas saa u noqday aad bay u habboontay waana waajib xarakada qur-aanka in la ilaaliyo waxaa laga yaabaa xarako qura oo uu qofku bedelo xaraf iska daayo inay macnaha oo dhan bedesho sidaa daraaddeed bay waajib tahay qofka qur-aanka baranaya inuu mucallin yeesho carabkiisa loo saxo ka soo qaad haddaad tidhaahda ancamtu calayhim maxay noqonaysaa anaa u nicmeeyey dadka weeye adigaaba is-ilaah gareeyey ilaah baad iska dhigtay markaasoo ancamtu calayhim anigaa u nicmeeye weeye ka waran haddaad ta'da kasriso ama aada hoos dhigto ancamti calayhim markaana tu dhadig baabaad la hadlaysaaba ilaahay baabaad dhadigaysay subxaana wa tacaala waa laba ayaan darro waaweyn idan markaa waan iska akhriyaya un qur-aanka sax maaha laakiin qur-aanka kariimka ah waa in mucallim loo yeeshaayo la faa'iidaystaa aada iyo aad looga bartaa mucallimiinta waxaa kaloo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer dhammeeyo suuraddan waxaa odhan jiray maxay aamiin buu odhan jiray axaadiidta saxiixa bay ku sugantahay bukhaari iyo muslim sida loo odhanayaana waxa weeye qaybta hore waa madulbedel qaybta dambena waa caaridu lisukuun aamiin waana la soo gaabin karaa aamiin laakiin tan aynu inagu akrino maxaynu inagu akrinaa aamiin way maarata ku laxaadsanayaan taasi macnihiiba meesha uu ka baxaya walaa aamiina albayt alxaraam waa qasad bay markaa noqonaysa alqasd macnuhuna qasad imika maaha halkana waa istajib ilaahay una aqbal baa markaad aamiin leedahay waa ilaahw noo aqbal ducada haddaad miimka shidana qasad bay noqonaysa wax akhriyeyna ma jirada quraa'ada qaarkood sida warash oo kale ayaa had iyo jeer wuxuu akhriyaa madulbedelka ayuu dheereeyaa dee markuu dheeraynayana miimka ma shidayo aamiin weeye markaa haddii dariiqa qira'at warash la akhriyayo aladiina aamanuu marka waa dheerayn aan shid lahayn qofkii doonaya taa inu akriya dadku taa ugama jeedaan marka wuxuunaan uga jeedaa un aamiin in la soco imika markuu imaamku akriyay waladaliin markuu idhaahdo maxaynu odhanaynaa miimkii baa lagu taagaya shid sida saxda ah waxa weeye in la idhaahdo aamiin qaybta dambe la jiido waktiga la odhanayo marka salaada
imaamku kolkuu yidhaahdo wala daaliin ee uu dhammeeyo ayaa la odhanayaa aamiin man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min denbi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaas saasuu ku sheegay qofka aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta dembigii hore o dhan baa laga dhaafay aamiinta malaa'igta iyo aamiinta imaamkuna way iswaafaqsan yihin marka aamiinta imaamku kolkuu bilaabo ayay malaa'igtuna bilaabaysa adiguna markaa bilow haddii laakiin imaamka aamiintiisiyo aan la gaadhin adigu aada horay uga sii bilowdo waad qadimanta horaad usoo fadhiisato aamiintaadu tii malaa'igta way seegaysa marka goormaynu inagu aamiin idhaahna waxay dadku odhanayaan wala daaliinta intaanu dhammaynba idaa qaala alimaamu wala daaliin markuu idhaahdo faquuluu fa'd waa tartiib maca tacqiib markaa kadib idinku waxaad tidhaahdaan aamiin dhaha marka hala sugo wala daaliin markuu dhammeeyo aamiin bilaabo la bilow arrintaasna waa arrin aada u muhiima wixiinoo dhan waa wada degdeg aamiintii baa aamiintii ka horeysaa assalaamu calaykum tiina intaanu tii dambe odhanin waynu kacnay marka had iyo jeer masbuuqaa tahay salaada imaamku tiisa uu dhammeeyo adiga wax kuu hadhayn goormaynu kacnaa markaana waxaa la kacaa had iyo jeer marka tii hore inuu yidhaahda tii dambe aanu gaadhin maxayna wada qadimay marka waxay u baahan tahay si ujuurtan iyo abaalmarintan loo helo in cibaadada waktigeeda lagu beego intaasuu inoogu joogi doonaa dariskani wahada ma aquluhu astaqfir اllah wallahu subxaanaه wa taعala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان